inta la og yahay hal ruux oo haweenaya ayaa haraad iyo gaajo ugu dhimatay tuulada Gudmahadle oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana uu xaqiijiyay TV-ga Universal geerida haweenaydaasi mid ka mid ah eheladeeda oo aan kula kulanay deegaanka Gudmahadle waxaana ka sii daraysa xaaladda abaarta ee ka jirta guud ahaan gobolada bariga Somaliland deegaanada galbeedka gobolka Sanaag waxa dhamaaday xoolihii ku dhaqnaa deegaanadaasi waxaana ka taagan xaalad bini'aadanimo oo halis badan bulshada deegaanku waa kuwa ka quustay nolosha balse waxa muhiim ah inaan xusuusnaano aayadda 2 ee suuratu Zumar oo Ilaahay ku yiri la taqnadu min rahmatillah haka quusanina naxariista Ilaahay sidoo kale deegaanka Raastumaarle ee galbeedka gobolka Sanaag waxa ka jirta xaalad biyo la'aaneed oo aan hore uga dhicin deegaankaasi qaar ka mid ah bulshada deegaanka Raastumaarle oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ugu baaqay guddiga abaaraha iyo xukuumadda Somaliland in degdeg loo badbaadiyo nolosha bulshada deegaankaasi sidoo kale Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo kamid ah madax dhaqameedka Somaliland ee ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa sheegay in aanu jirin wax gurmada oo gaaray deegaanadaasi waxaanu ku hanjabay hadii waxba laga qaban waayo xaaladda halista badan ee ka jirta galbeedka gobolka Sanaag inay ka goosan doonaan gobolka Sanaag intiisa kale iyo wax gudaawareeda iyo wax dawladda midna ma arag haday dawladda tahay haday tahay qurba joogta waxaan u gudbinayaa oo gaajo deshay inta iyo naflaan ay uga socoto dawladda codsanaya deena la badbaadiyo ilaahay uun baahida been kara xasaan uu sheegaynaa dawladda iyo dadkeeda iyo madaxweynaha Maxamed Maxamuud Siilaanyo inaan dayac weyn lagu qabaa inta jiidaan ka hadlayno aanu nahay hooyooyinka ku nool magaalada Raastumaarle waxaan haysata xaalad biyo la'aaneed nafta hadii ay biyo weydo daqiiqada ma noolaato laakiin anagu hadii aanu nahay bahda dumarka maatada samsam baan canaananaynaa samsam cabdi aadan waxaan u canaananaynaa si xoog leh gobolada bari marnaba ma soo eegto samsamay oo galbeed uun baad ka shaqaynaysaa waxaanu daawanaynaa qof lacagay riigaad ku shubay biyaha dhadhaminays anagu wax la dhadhamiyo wax la dhuunyada ma hayn Raastumaarle barkadihiina waxay dhamaadeen markii la isku dhuftay u horeysay ilaa 3 bilood biyo dhaamis bay ahayd dadkii baatii u dambeysay taagan waxa dhacay waqti kulul oo adag oo ka tan weyn Soomaalida geeska Afrikada ku baabaasan haday wasiir tahay haday madaxweyne tahay oo maalinta uu la doonayo doorasho ay ka dhacdo ma cid kale ma aragno waxay ku dhacdana garamayno madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan leenahay madaxweyne halkan xilligii ugu dambeysay waa jaraana xaaladda maanta ku jirtana waa aragtaa maalinta adaa u baahnaa dadka maantana aday ku baahan yihiin ninka xilsuga madaxweynuhu uga waa ku wareejinaya Muuse Biixi Cabdi mamin dalka bari waxba ka rabin ba magaaladan aanu maanta joognaa waxa weeye Raastumaarle waxa maanta aanu halkan kula kulanay arrimo aad u dhibaato badan waxa weeye magaalada wax biyaha yaraatee ma haysato hooyada biyaha ee la soo dhaamiyo ee ka timaada ilaa $170 weey meeshaanu joognana waxa la yiraahdaa Gudmahadle xaaladoodu waa xaalad adag hadii ay gobolka madax ka yihiin iman waayaan oo xaaladda dadka la socon waayaan in oran karnaa madaxweydii aan anagoo dadka odayaashoodii go'aan ka gaari doona ballan baan ku qaadayaa hadii wax laga bedeli waayo inaanay sanaa ka sii tirsanaa Ali Daahir Maxamed Boos TV-ga Universal